بسم الله الرحمن الرحيم كلنتو عن أول أكسن داودياشا قيمة قدر أنت ما تقول سلوات برنامجكي وبرنامجكي سعودالك هذا قبرتين حلقة نقولين كداوتان تلفزيون كقرن كالصومالية تضبط كهرة داودي روح أنا كسر قادنا أو أنا كجورنا حنون كلهم مقابو كوفيد أما كورونا فيروس سجاليتون حنون كاسي أون لغلي حنون بلارن وسامي ويكويشه لمان دونيدا gaar ahaan dalalkii ugu xoog waaweyn oo Mareykanka iyo Shiinuhu ay ka mid tahay Shiinaha uu ku soo bilowday cudurkani dabayaqadii sanadii la soo dhaaftay 2019 isagoo lagu magac daray hadaba 19 gadaal laga raacay waxa weeye coronavirus 19 waa 2019 xanuunkan uu ka bilowday dunida xagee Shiinaha gudihiisa xagee waa magaalo ku taal Wuhan bartamaha dalka Shiinaha waxaana uu sameeyay cudurkaasi uu sameeyay dalal fara badan oo Talyaaniga iyo Spain ay ka mid yihiin marka aanu eegno dhanka iyo qaaradda Yurub dhinaca Amerika marka aanu eegnana waxa uu saameyn weyn ku yeeshay dhinacaas iyo dowladda Mareykanka oo madaxweyne Donald Trump uu saxiixa ku duugay in 3 trilyan oo lacag ah oo dollar ah ugu yabaho hay'adaha caafimaadka si looga hortago faafitaanka cudurkaasi inuusan ku ballaaran gudaha dalka Mareykanka dhinaca Asia hadaan eegno waa meeshu ka bilowday Yurubna labada dal aan ugu daro waa soo sheegnay iyada oo Spain oo ah gobol aad qani u ah gobolkaas oo lagu magacaabo Catalonia dhakhaatiirta joogay ay sheegeen in xanuunkaas cidii iyagu ay mar u waayaan inay qaadiso diyaarad helicopter oo gelayso dhankaas iyo Germany oo halkaas lagu dabiibayo ilaa waxaanu ka baryaynaa cudurkaas Ilaahay inuu nagu hayo bal iminka ku soo dhawaaday waan ku dheeraaday faallada filmka lamaana ka soo jeeda gobolka bartamaha Hindiya ku yaala ee Chhattisgarh ayaa u bixiyay laba mataano ay dhaleen corona iyo covid xilli dalalka dunida oo dhan laga xayiray viruska sii fidaya ee corona awgeed labada mataano ayaa 27 bishii March aynu ka soo gudubnay ee sanadkan 2020 ku dhashay cusbitaalka dawladda Hindiya ee magaalada caasimadda ay Raipur ee gobolka Chhattisgarh laba maalin kadib markii ay dhaqan gashay xayiraada iyo bandowga magaalada taasi oo carqaladeysay nolol maalmeedka dadka dalka Hindiya Brita Ferma oo ah hooyo 27 sano jir ah oo dhashay mataanahan oo la hadashay wakaalada wararka ee Hindiya ee lagu magacaabo Press Trust ayaa sheegtay in ay umushay kadib markii ay dhibaatooyin fara badan ay soo wajaheen sidaa darteed uu ninkeeda iyo iyadaba ay labadaba go'aansadeen in ay xasuus gaar ah ay u noqoto lamaanaha ayaa sheegay in magacyada ay xusuusin doonaan mixnadaha iyo dhibaatooyinka ay wajaheen waqtigii xayiraada ay ku dhex jireen guryaha dhexdooda ka hor inta aysan si guul leh ay ugu dhalin gudaha cusbitaalka dawladda toddobaadkii la soo dhaafay Ferma waxa ay sheegtay in ay helin wax caawinaad ah xilligii dhalmada maadaama ay qoysaskooda tagi karin magaalada Raipur oo ay degan yihiin xayiraada awgeed waxaa joogsaday dhaqdhaqaaqa gaadiidka iyadoo waqti dambana ay habeenkii ay u suura gashay in cusbitaalka ay gaaraan kadib markii xanuun iyo kadeed tiro badan uu soo gaaray markii ay dhashay dhibaatooyin badan kadib waxa ay go'aansadeen in ay magacyada xasuusta caruurta laga dhigo
oo ay si gaar ah ay xasuus ugu noqoto ayay tiri Ferma oo intaasi ku dartay in shaqaalaha cusbitaalka ay dhinacoodu iska lahaayeen soo jeedinta magacyada corona iyo covid-19 in loogu magacdaro labada canug oo ay dhaleen kasukow in ay magacyadu yihiin kuwa aad u qurux badan ayaa magaca corona waxaa erey ahaan waa erey Latin ah oo dhawq ahaan u dhigma ereyga crown ayuu yiri Vinay Ferma oo ah aabaha mataanahan waxaan rabaa buu yiri in cabsida lala xiriirinayo magacyadaasi ay u dhamaato oo bulshaduna ay diiradda saarto nadaafadda iyo caafimaadka ayuu yiri aabaha dhalay lamaanaha ayaa sheegay inuu jiray cadaadis kaga imaanaya dhinaca odayaasha qoysaska ay ka soo jeedaan lamaanaha si loo bedelo go'aankooda oo ay caruurtu magacyadan ugu magacdareen Hindiya oo in ka badan 3 toddobaad bandow lagu soo rogay cudurka coronavirus awgeed tan iyo bishii Abriil ayaa waxaa ka dhashay in ay istaagaan adeegyada gaadiidka iyo socodka waxaana sidiisii u shaqeynaya amarada dadka iyo guryaha oo lagu amray inaanay ka soo bixin marka laga reebo socodka muhiimka ah ee adeegyada suuqyada goobaha daawooyinka lagu iibiyo ee farmasiyada dalka Hindiya ayaa dadweynihiisa tiradoodu waxa ay sii cagacageenayaan 1.3 bilyan kiisaska viruska iyo dadka uu soo ritay ayaa lagu qiyaasay in ku dhow 3,000 iyadoo 68 ay u dhinteen tirada guud ee kiisaska la og yahay ee gudaha dalka Hindiya ayaa ah mid aad u yar marka la barbar dhigo sida dalka Mareykanka Talyaaniga iyo Shiinaha balse khubarada caafimaadka waxa ay sheegayaan in Hindiya ay ku qaadan doonto toddobaadyo inay kaga taqalusto ama ay kaga adkaato cudurka ka oo waxyeeleeyay hanaanka iyo habka caafimaadka ee bulshada ee dalkaasi Hindiya iyo guud ahaan caalamka intiisa kale corona iyo xayiraadda Hindiya ayaa dhinaca kale waxa ay u noqotay musiibo bini'aadanimo kadib markii xayiraad ay soo rogtay dowladda dalkaasi Mr. Mena oo kamid ah dadka xayraadan ay saameysay ayaa si guud waxa ay uga hadashay caqabadihii soo qabtay ama soo wajahay waxaana ay sheegtay marka ay qaado ama telefoon ay kula hadasho tuulada oo ay ka soo jeedo oo ku taala dhinaca waqooyi ee gobolka Rajasthan isla markaana uu dib uga soo laabtay gobolka Gujarat oo uu ka shaqeyn jiray xilli ay qoraxdu aad u kulushahay Gautam Lal Mena ayaa waxa ay isticmaashaa cagtayda iyada oo lug dheer gasha si ay u gaarto halka ay doonayso maadaama uusan jirin isu socodka gaadiidka oo la xayiray inta wadada lagu jiro waxa dadku ay inta badan isticmaalayaan buskudka iyo biyaha magaalada Gujarat sida uu Mr. Mena sheegay waxa uu qaataa nolol maalmeed 400 rubi ah oo u dhiganta 5.34 doolarka Mareykanka ah lacagta inteeda badan waxa uu u diraa qoyskiisa shaqooyinka uu hayay iyo gunooyinka uu heli jiray ayaa gabi ahaan meesha ka baxay markii ay dowladda Hindiya soo rogtay xayiraadda 22 maalmood oo 24 bishii aynu ka soo gudubnay si rasmi ah u dhaqan gashay taa oo qayb ka ah ka hortagga cudurka corona inaanu ku fidan gudaha mujtamaca dalka Hindiya xanimaada lagu soo rogay gaadiidka ayaa ku qasabtay Mr. Mena inuu lugeeyo maalin iyo habeen oo dhan ayuu socdaa mana laha ikhtiyaar lacag yar hadii uu helana maba helayo gaadiid uu raaco keligii kuma aha safarkan guud ahaan shacabka dalka Hindiya ayaa sidaas u isticmaala oo cagaha maala dadka malaayiin ah ayaa iyaguna gaar ahaan kuwa muhaajiriinta ah ee magaalooyinka ka yimid qaarkood dib ayay u barakaceen oo waxay aadeen tuulooyinkii ay markii hore ka yimaadeen shaqaalaha ayaa ah kuwa qaar rasmi ah waxaana ay lafdhabar u ahaayeen dhaqaalaha magaalooyinka waaweyn ee dalka Hindiya oo ay ka mid tahay New Delhi waxaana ay shaqooyinka ay qabtaan ka mid ah sida dhismaha guryaha cunto karinta timajarida iyo adeegyada kale ee isqurxinta oo ay ka mid tahay cilaan saarka dadku waxa ay ka soo baxsadeen faqriga ka jira tuulooyinka ay ku noolaayeen tirada lagu qiyaasay dadkaasi waa 100 milyan waxayna ku nool yihiin xaafado aad ciriiri u ah shaqaalaha aan rasmiga ahayn
ayaa waxa ay xudun u yihiin dhaqaalaha iyo kobaca wax soo saarka ee magaalooyinka dalka Hindiya. Xayraadii la soo rogay toddobaadkii la soo dhaafay waxa ay shaqaaluhu qaarkood baday inay dib uga baxaan oo ay noqdaan kuwo sida dad barakacayaal ah.